تعالى وبركاته وعن وناكسن داوديال دلهانتين با kusoo dhawaada warkeeni maalinlaha oo kala socon jirteen multimedia warkana waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Nimcada Maxamed waa maalin Jimcaha 29 January 2021 qodobada ugu doorka roon warkeena maanta waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo qalinka ku duugay matalaada aqalka sare ee gobolka Banaadir Jawhar Baqale iyo siyaasiyiin kale oo la xiran oo diiday cuntada kadib markii taageerayaashooda la xiray imika iyo haatan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan ogeysiis ka soo baxay jaamacadda Jigjiga waxay ogeysiinaysaa dhammaan ardaydii ku jirtay sanadii 2012 tirsiga Itoobiya sanadka koobaad labaad iyo saddexaad iyo afraad inay soo xaroodaan 6 ilaa 7 bisha February 2021 jaamacadda Jigjiga ayaa ardayda ka codsatay inay soo xaroodaan muddadaas kor ku xusan waxayna sidoo kale ka codsatay ardaydu inay raacaan habraacyada wasaaradda caafimaadka ee dalka iskana ilaaliyaan caabuqa COVID-19 madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo maanta gaaray magaalada Diridhabe madaxweyne Mustafa oo shalay magaalada Bahardar kaga qayb galay shir heer qaran ah ayaa magaalada Diridhabe ka soo degay waxaana soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ismaamulka Diridhabe madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa la filayaa inuu galabta xariga ka jari doono astaanta gawaarida laga raaco ee laga dhisay magaalada Shineele ee xarunta gobolka City astaantana oo ay isticmaali doonaan gaadiidka u kala goosho degmooyinka gobolka City Shineele iyo Jigjiga Shineele iyo Jabuuti sida warbaahinta dawladdu sheegaysa madaxweynaha ayaa kormeer ku sameyn doona mashaariicaha horumarineed ee ka socda magaalada Shineele Jawhar iyo Baqale iyo siyaasiyiin kale oo la xiran oo diiday cuntada kadib markii taageerayaashoodii la xiray mid ka mid ah qoyska Jawhar oo la xiriiray jariidada Addis Standard ayaa u sheegay in Jawhar iyo Baqale iyo maxaabiista kale la xiran ee lagu soo oogay kiis dacwadaadka argagixisada iyo dambiyada kale inay diideen cuntadii iyagoo ka mudaharaadsan taageerayaashooda tirada 80 kor u dhaaftay agagaarka maxkamadda laga soo xiray isla markaana dalbaday in qoysaskooda loo ogolaado inay dhageystaan dacwadaha lagu soo oogay kadib markii lagu soo xiray tallaabooyinkii ay dawladdu qaaday ee daba socday rashbadihii ka dhashay dilkii heesaagii caanka ahaa ee oramada Jaalu Handasa 29 Juun arrintaas oo aan weli meel la saarin Jawhar iyo 22 maxbuus oo kale ayaa weli xiran iyagoo wajahaya dacwado lagu sheegay argagixisnimo iyo dambiye kale oo lagu soo oogay markii la furay dhageysiga kiiska dacwadda ee maxaabiistan ayay boolisku xabsiga u taxaabeen taageerayaal ka soo muuqday agagaarka maxkamadda ayagoo ku labisan dhar huruud ah oo ay ku muujiyeen taageerada ay u hayaan maxaabiista oo iyaga laftooda ku labisnaa dharka isku sii deyska ah ee maxaabiista oo midab ahaan huruud ah mareegta Addis Standard ayaa sheegtay inay maqraati ka ahayd booliska oo ku tacadinaya cid walba oo xidhan dharka huruud ah isla markaana u diidan inay galaan gudaha maxkamadda Addis Standard ayaa sidoo kale sheegtay in taageerayaal kor u dhaafaya 80 qof ay boolisku xidheen iyagoo xabsiyo kala duwan u qaybiyay wasiirada arrimaha dibadda dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya oo kulan ku yeeshay caasimadda Addis Ababa wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Itoobiya Damaqa Mokonen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq labada mas'uul ayaa ka wada sheekaystay ama ka wada hadlay arrimaha guud ee ka dhaxeeya labada dal mudane Damaqa Mokonen ayaa dhankiisa uga warbixiyay xaaladda dalka Itoobiya iyo gobolkaba wuxuuna sidoo kale si kooban waramay diyaar garowga ay dawladda Itoobiya ugu jirto doorashada dhawaan la filayo inay dalka ka dhacdo Damaqa ayaa sidoo kale sheegay inay dawladda Itoobiya sii xoojin doonto xiriirka ay la leedahay Soomaaliya dhanka kale wasiir Maxamed Cabdirasaaq ayaa mahadnaq kadib u sheegay Damaqa inay dawladda Soomaaliya wada hadal la yeelan doonto dawlad goboleedyada wada hadalkaas oo quseeya arrimaha doorashada dalka Soomaaliya wasiir Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda gobolka Tigray ee hirgelinta sharcigu ay tahay mid arrimaha gudaha Itoobiya qusaysa Soomaaliyana ay ku garab taagan tahay
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo qalinka ku duugay matalaadda aqalka sare gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa qalinka ku duugay warqadda matalaadda aqalka sare gobolka Banaadir ayaa baarlamaanka 11aad aqalkiisa sare ku yeelan doona 13 xubnood madaxweyne Farmaajo ayaa saxiixa warqadan u cuskaday go'aankii baarlamaanka ee 27 Juun 2021 madaxweynaha ayaa sheegay inuu tixgeliyay cabashada bulshada iyo odayaal dhaqameedka gobolka Banaadir madaxweynaha ayaa xukuumaddiisa faray inay xareeyaan habraacyada u gaarka ah hirgelinta matalaadda aqalka sare gobolka Banaadir dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamed Cumar Finish ayaa bogaadiyay go'aanka madaxweynaha kuna tilmaamay mid taariikhi ah warkaanu idinku talagalay maantana daawadayaal waa naga intaan markii xigta ku kulmi doona hawada waxaan idinkaga tegaynaa sida ayaamaana Allah